خالد ابن الوليد ابن المغيرة المقسومي القريشي geesiga geesiyada halyaayga taariikhda oo dhan nin aan weligii dagaal ku jabin ka hor iyo ka dambe islaamka mid ka mid ah kuwa ugu horeeya taariikhda dhinaca dejinta taktikada dagaalada 700 oo sano ayay Faris iyo Ruum dagaalamayeen waxaana dhex maray in ka badan 100 dagaal laakiin Khalid ayaa labadoodii 4 sano ku soo afjaray 15 dagaal ayuu la galay Faris dhammaantoodna wuu ku jabiyay ilaa uu cagta mariyay imbaradoriyadii Faris oo dhan maanta waxaan ka hadlaynaa sayfullahi almasluul Khalid radiyallahu anhu خالد بن الوليد ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا si dhaba looma yaqaan taariikhda uu dhashay Khalid laakiin waxaa la qiyaasaa 25 ilaa 30 sano ka hor hijriyadii nabiga na beegan 592 miilaadi wuxuu ka dhashay guri lagu yaqaan hanti iyo maamuus aabihii waa Waliid ibn al-Mughira wuxuuna ahaa hogaamiyaashii reer Banu Maqsuum ahaana raggii dhinaca hogaaminta ugu sareysay Quraysh asagoo yar ayuu fardafuulnimada bartay Khalid iyo Subayr ibn al-Awwam ayaa lagu tilmaamaa ragga galiya ayagoo farda saaran laba sayf ku dagaalami jiray waana xirfad ay kasbadeen kadib leylis iyo tababar adag aabihii wuxuu lahaa kolonyo ganacsi oo aadi jiray dhulka Shaam taasoo keentay in Khalid uu dhowr jeer booqdo dhulkaas lana kulmo ummado kala duwan aabihiis wuxuu ka mid ahaa raggii ugu horreeyay ee cadaawada xun u muujiyay islaamka heer Ilaahay ku soo dejiyay Qur'aan ilaa qiyaamaha soconaya kaasoo ka hadlaya sida Ilaahay u karaameeyay Waliid laakiin wuu diiday karaamadaas masiirkiisa dambana yahay in lagu daalin doono fuulida tiir naarta ku dhaxyaal Khalid ibn al-Walid kama uusan qayb galin dagaalkii Badr wuxuu ku maqnaa xilligaas dhulka Shaam laakiin dagaalkii Uhud ayuu sababay in muslimiinta la jabiyo dagaalkaas Uhud waxaa la ogyahay in rasuulka sallallahu alayhi wasallam in ragshiishi annaha uu amray in ay fuulaan dusha buurta yar ee loo yaqaano Jabal Rumaat si ay u ilaaliyaan dhabarka dambe ee muslimiinta laakiin ay dhacday in raggaas ay khilaafaan hadalkii rasuulka ayagoo isla gaaray xisaab ula muuqatay mid sax ah markii ay qiyaaseen raggaas intoodii badneed way ka soo dageen buurta balse ciidamo uu watay Khalid ibn al-Walid ayaa dusha kala socday waxa ka socda meeshaas Khalid waa nin taktikiyahana wuxuu qiyaasay haddii ragga buurta saaran yar leefo in ay sahlan tahay in uu dhabarka dambe ka jabiyo saxaabada waana mid dhacday keentayna in Quraysh ayadoo jabtay dib boorka iskaga jafto miisaankoodii dagaalkana kor u qaadmo waxaana dhacay musiibadii Uhud 70 saxaabi in lagu waayo dagaalkaas Khalid ibn al-Walid iyo dagaalkii Mu'ta wuxuu ahaa dagaaladii ugu horreeyay ee muslimiinta iyo imbaradoriyadii Ruum ay ku hardamaan wuxuuna ahaa dagaal aan isku dheelitirneyn dhinaca ciidanka saanada hubka iyo meesha uu ka dhacayo oo ahayd dhul aysan muslimiintu xukumin in aad dagaal ka gasho dhul dawlad kale ka taliso waa mid aad u adag Mu'ta waxay maanta ku taalaa dhulka loo yaqaan Urdun aad ayayna uga fogtahay Madiina markii loo fiiriyo ciidan lugeynaya rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu magacaabay 3 nin in ay hogaamiyaan dagaalka Mu'ta Sayd bin Haris Ja'far ibn Abi Talib iyo Abdullah ibn Rawaha waxaana la socda raggan Khalid ibn al-Walid wuxuu ahaa dagaal aan isku dheelitirneyn taasoo keentay in saddexdaas hogaamiye ay dhigooda daahirka ku qoodiyaan dhulka Mu'ta ciidankuna oo soo dhaco hogaamiye la'aan dhul cadow ciidan ka badan waa xaalad aad u adag isla markiiba waxaa calanka muslimiinta qaaday Khalid ibn al-Walid muhiimadiisu ma ahan sii wadida dagaalka iyo in uu guul gaaro waa badbaadinta 3,000 oo nin ay ku gadaaman yihiin 100,000 oo askari fursadda in la wada gumaadana ay ka badan tahay in ay badbaadaan Khalid maalintii koowaad wuxuu galay dagaal aan horey loo arag heer ay gacantiisu 3 seefood ku jabaan maalin dhameystiran ayuu dagaalamayay waxaana adag in ciidanka dagaalka laga bixiyo ayadoon dhammaantood la gumaadin arinku wuxuu ahaa mid aad u cakiran wuxuuna u ekaa qof meel bannaana taagan kadibna lagu sii daayay 100 libaax irina orod haddaad uga baxsan karto ka baxso laakiin Khalid wuxuu dejiyay qidad ah in uu isku shaandheyn degdeg ah ku sameeyo ciidankiisa kalena bedelo guutooyinka iyo meelaha ay ka dagaalamayeen wuxuuna kala bedelay calamadii ay wateen qayb kamida ciidankiisii ayuu amray in ay boor kiciyaan iyagoo takbiirsanaya una dhaqmaya sida ciidan cusub arrinkan ayay Ruum u maleeyeen in uu yahay gurmad soo gaaray ciidanka muslimiinta si arrinka looga dhigo mid dhab u muuqda Khalid hal mar ayuu weerar degdeg ah ku qaaday ciidanka Ruum intaas wuxuu dejinayay qidad ah in ciidanka si nabadgelyo ah uga bixiyo goobta ayagoo nabad qaba oo si karaamo leh oo aanan jab ahayn xaaladdu markay adkaatay ayuu Khalid asxaabtii u dejiyay qidad bixitaan ah dagaalada sida duulaanada muhiim u yahay qidadna loogu dejiyo
ayaa bixitaanadana qidad loogu dejiyaa si ciidankaasii baxaya dhabarka looga jabin. Dagaaladan tabar u lahayn in aad ciidankaaga si farsamaysan uga bixiso waxaa lagu tilmaamaa taariikhda dagaal mid aad muhiim u ah. Gelitaanka diinta xaqa ah Khaalid islaamnimadiisii dib ayay u dhacday wuxuuna islaamay ka hor kaliya 6 bilood furashadii Maka oo ahayd sanadkii 8aad ee Hijri. 2 bilood ka hor qaswadii Mu'ta ee Khaalid ka dhigi doonta dhalashada hogaamiye muslim ah oo aan hore loo arag. Taariikhda Khaalid bin Waliid intaas kooban ayaan idinkaga soo gudbiyay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.